الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال الله سبحانه وتعالى أيام وينينينا إسحسوسينينا وحو نقرب جل جلاله جل شأنه إلهي سبحانه وتعالى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي صادري أنه نو صادري وحونا أمري إن راعنو waxaan isku dayaynaa inaan wax ka baranno noloshiisii. xaasaskiisii ayaan ka soo sheekaynay. khadiija ayaa 1 ahayd, sawda ayaa 2 ahayd, caaisha ayaa 3 ahayd. maanta waxaan dul joognaa xafsa bintu cumar ibn al-khadaab amiir al-mu'miniinka gabadhiisii. waa tii afaraad oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu guursado. khulafaa ur-raashidiinta afarta ah oo talada muslimiinta la wareegtay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa afartii u horeysay oo talada muslimiinta la wareegta. 2 nabiga ayaa ka guursaday, 2na asigay ka guursadeen. 2da asiga ka guursaday waxaa u horeeya abubakar as-siddiiq radiyallahu anhu wa ardaah. gabadhiisa caaisha ayuu nabigu guursaday calayhi salaatu wasalaam. waxaa 2 khulafaa raashidiinta kaalinta 2 ku jira cumar bin al-khadaab. gabadhiisa xafsa ah oo maanta aan ka hadlayno ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka guursaday. 3aad waxaa talada muslimiinta qabto khaliif noqday cusmaan bin cafaan. 2 gabdhood oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhalay ayuu qabiyey. wuxuu guursaday ruqiya, way ka dhimatay. dagaalkii badar xilligiisii ayay ilaahay oofsaday. kadibna nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu siiyey umu kaltuum, xaaskii 2aad ayuu siiyey. sidaas ayuu ku guursaday 2 gabdhood oo nabigu dhalay calayhi salaatu wasalaam. cusmaan markii ilaahay oofsaday kadibna oo la dilay waxaa talada la wareegay caliy ibn abi taalib. asigana wuxuu qabiyey gabdhaha nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadhii ugu yareed oo faatimatu zahraa ahayd. faatima bintu rasuul ayuu qabiyey sala allahu calayhi wasalam. afartaas khulafaa ur-raashidiin sidaas ayay nabiga xidid ula ahaayeen calayhi salaatu wasalaam. maanta waxaan dul taagannahay oo aan wax iska xasuusinaynaa xafsa bintu cumar oo xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam tii afaraad ah. xafsa waxa ay dhalatay bicsada ka hor 5 sano intaan nabiga la soo saarin calayhi salaatu wasalaam oon rasuul laga dhigin ka hor 5 sano ay dhalatay. nabiga 40 jira waxyigu kula soo degay. marka 5 sano ka hor 35 jir ahaa. nabigoo 35 jir ah ayay dhalatay. macnaheedu waxay tahay 35 sano ka weynaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam bicsadiisii markii laga joogo 7 sano oo sanadkii 7aad ay marayso ayaa waxaa guursatay xafsa. waxayna guursatay asxaabi la dhihi jiray khunays. marka ay guursanayso 12 sano ay jirtaa. 5tii bicsada ka horeysay iyo 7dii ka dambeysay 12 sano jir iyadoo ah ayuu guursaday. da'daas yaraantaas in lagu guursadana waxay ahayd wax iska caadi ah, wax iska caadiye ahayd. safiya oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu guursaday oo yuhuudiyad ahayd intaysan soo islaamin oo aabaheed uu ku daray nin yuhuudi ah, da'aadkaasay jirta 11 inay jirta umalayna. 11 meelahaas iyadoo jirta ayaa ninka yuhuudiga ah uu hore u guursaday. 12 sano jir markay xafsa ku guursatay xilligii hijrada oo lasoo hijroonayay. waa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo 13 sano maka jooga oo dadka diinta ugu yeeraya oo quraysh ay dhibayso oo muslimiinta cadaab badan lagu haayo ayaa hijrada loo fasaxay inay madiine u hijroodaan. dadkii soo hijrooday oo diintooda la soo cararay oo maal iyo adduun iyo ehel waxay lahaayeen maka uga soo tegay ayay xafsa ka mid ahayd iyo ninkeedii khunays ahaa. markii ay maka imaadeen madiine imaadeen quraysh duulaanay ku soo qaaday. dagaalkii badar ayaa dhacay. dadkii dagaalka badar ka qayb qaatay ayuu ka mid ahaa. dhaawac iyo jab weyn ayaa ku gaaray quraysh. abujahal iyo dadkii la mid ka ahaa oo madaxya buurtii kuwii ugu waaweynaayo dagaalka soo abaabulay ayaa meesha lagu laayay. quraysh waa aarsanaynaa hay dhaheen. mar labaaday haddana duulaan kale soo qaadeen. duulaankii uxud quraysh wuu ka qaybgeliyey. marka badarna wuu ka qaybgeliyey, uxudna wuu ka qaybgeliyey.
labadaas dagaal markuu ka qayb qaatay dhaawacyo ayaa soo gaaray sanadkii 3 hijriyada ayuu u dhintay dhaawacyadii khunays marka uu dhintay oo ilaahay oofsaday dadka ahlu badarka ahna nabiga calayhi salaatu wasalaam janna ayuu ugu bishaareeyey ahlu badar iyo ahlu uxud naar ma galayaan inaysan naar galaynaan rajaynaa ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi marar kala duwanoona ahlu badar ugu bishaareeyey jannada mubashiriin ay ahaayeen asxaabigaas jaliilka ah markuu saas ku dhintay cumar binu khadaab ayaa gabadhiisii 7 bilood camal markuu dhinsan yahay ayuu gabadhiisii wuxuu u raadiyey guur markaasna waxay jirtaa 21 jir waay gabadhiisii 21 sano jirtay ayuu guur u raadiyey Uthman bin Affan u yimid Uthman bin Affan markuu u yimid waxaa ka dhimatay xaaskiisii hore oo gabadhii nabiga calayhi salaatu wasalaam ahayd ruqiye ahayd welina umu kaltuum ma guursan marka wuxuu sameeyey waa u soo bandhigay markuu u soo bandhigay Uthman bin Affan wuxuu yiri waa ka soo fiirsanaa waa ka soo fikiraa markuu ka soo fikiriyay wuxuu ku dhahayay waa cudur daaray Umar intaas kuma ekaysane Abu Bakr as-Siddiq ayuu u bandhigay markuu Abu Bakr as-Siddiqna u bandhigay ayuu Abu Bakrna ka aamusay haana ma dhihin maya ma dhihin waa ka soo fikiraa ma dhihin wuu ka aamusay markuu ka aamusiyay ayaa meeshan marka waxa ku jirta sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo Xafsa ku guursaday Abu Bakr markuu ka aamusay ayuu iska tagay ayay kala tageen buu ka xanaaqay Umar ninkan aan jawaab u celinaynin muddo wax yar kadib nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa soo doontay Xafsa wal Umarna wuu siiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam uu siiyey wuu ku farxay inuu nabigu gabadhiisa guursado wuu ku farxay cid ka mudan oo ka guursan lahayd ma jirto Abu Bakr iyo Uthman asaa ka sharaf badan oo ka fiican rasuulkii ilaahay ah wuu ku farxay Abu Bakr u yimid markaasuu wuxuu ku yiri waxaa dhici karta inaad iga xumaatay markaan ka aamusan ku jawaabi waayay waxaan ogaa in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay uu hadal haayay Xafsa sirtiisa inaan faafiyo ayaan diidanaa marka sirta inuu faafiyana waa diidanaa inuu ka hor dhaco oo asigu guursadana waa diidanaa sidaas uu aamusay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas ayuu ku guursaday Xafsa xaaskiisa ayay noqotay iyadoo 22 jir ah nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu la noolaa noloshoodii marka waxaa jirta qisooyin oo waxaa jirta xilligaas uu la noolaa la soo qaato waxaa ka mid ah qisadii maseerka ahayd oo qusaysay Xafsa iyo Caaisha oo ka maseeray Zaynab bintu Jahsh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo malab ka soo cabi jiray markaas Xafsa iyo Caaisha waxay ku heshiiyeen haddii uu ku yimaado waxa ku tiraahdaa afkaaga maxaa ka soo kamkamaya ma basal iyo wax la mid ah soo cuntay cunto noocaas ma soo cuntay markaasuu Xafsa ku soo hormaray waxay ku tiri sidii asigana wuxuu yiri maya malab ayaan Zaynab bintu Jahsh ka soo cunay markaasuu waxay tiri wuxuu yiri mar dambe uma noqonay kama soo cunay haday saasta marka aayadaha ugu horeeya suuratu tahriim ayaa ilaahay ku soo dejiyay asoo nabiga calayhi salaatu wasalaam dhahaaya maxaad iskaga xarimaysaa wixii ilaahay ku xalaaleeyay adoo dumarkaaga raali gelinaya ayagana canaananaya oo tooba keena dambiga gasheen dhahay waxaa kaloo jirta nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa Xafsa furay markuu furay gurigoodii aadadoodii oo iska ooysay Jibriil ayaa nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu u sheegay inuu soo ceshado laba sifo ku amaanay waa mid qawaama iyo sawaama ah salaatu leyl ayay tukasho badan tahay soonkeedana waa badan yahay habeenkii qur'aan iyo salaatu leyl u taagan tahay maalintiina way soontaa waliba wuxuu ugu dariyay bishaaro oo ah waa sawjadaada waa xaaskaaga jannada xaaskaagii jannada waayna waa loogu daray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa u yimid waa soo ceshtay sidaas ayay xaaskiisa ku ahayd ilaa ilaahay oofsado nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
وحاك لو جرتا قصة كلي عنكو أهد نبي عليه الصلاة والسلام مركي إلهي أوصدي أو بكر الصديق تلاد وقبتي أيا وحاد عدي دقال إني مسلمين تقالان ودد بدن أي قاتين مر نبيجي هدول انتي إني أرنتو ماشي أسكو أكته وقارسة كذي ديدين قاردينتي كلابتين dhibaato badan ay timid muslimiintii dad badan oo dadkii quraanka xifdisanaa ah ayaa leeday ayaa shahiiday oo dhintay markaas waxa laga baqay in quraankii dhumaba ma qornayn markaas quraankii meelihii uu ku qorqornaa ayaa la soo aruuriyay kutubkan hadda aan naqaano haysano ma jirin wixii markii la soo aruuriyay gurigii waxa lagu soo aruuriyay Xafsa iyada hay jirtay oo ilaali jirtay waxay soo saartay xilligii Uthman bin Affan oo Uthman bin Affan uu go'aansaday inuu kutub qoro markaas wixii ay heysay oo quraanka ku qornaa ayaa inta la soo wada qaaday la jamciyay oo kutub oo ka dhigay Uthman bin Affan radiyallahu anhum ajma'in waxay ahayd mid sadaqa badan waxay ahayd mid dadka u naxariisata أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها بحاسسك النبي عليه الصلاة والسلام لما أنتنا سلاس أي أهايين صدقات يكفي إنايين صلاة الليل يكفي إنايين صوم يكفي إنايين وحو البؤ وناقة أي يكفي إنايين النبي عليه الصلاة والسلام أي سؤال ويدي جرت